السلام عليكم أصحابتنا قيمها قايا له سمتيج أونلاين عشر كنا ما أنت بحكوا سابسين هاي habka ugu fudud ee aad wax ku fahmi kartid dhamaanteen waxaan nahay arday maadaama arday aan nahay oo aan wax barano waxbarashadana aysan lahayn meel ay ku dhamaato waxaan rabnaa inaan barano waxyaabo naga saacidaya inaan si fiican wax u fahno habka ugu wanaagsan ee aan wax u fahmi karno intaan gudu galin haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe sar please subscribe like share ha badato asxaabay inaad wax fahamtid waa wax ugu wanaagsan ee ka saacidi karo inaad goolkaaga hadafkaaga aad gaartid sidaas daraadeed waa maxay habka ugu wanaagsan ee aad ku fahmi kartid waxaad baranaysid number 1 waxa laga rabaa inaad ogaatid waxa aad baranaysid waxa ay yihiin waa inay ka dhaadhacsan yihiin waa inaad ogtahay waxa aad baranaysid waxa aad doonaysid inaad fahamtid isla marka aad ogaatid waxa aad doonaysid inaad fahamtid soo qaado warqad soo qaado qor sidii adiga oo dad u sharxaysid u qor marka aad sharaxaad marka aad qoraysidna waxaad isku dartaa hadalka iyo qoraalka waxaad iska soo qaadaa adiga macallin sabuurad taagan oo class wax u sharxaya okay marka sidaas samaysid waxa ku cadaan doonto inaad wax fahamtay iyo in kale haddii aadan fahmin repetition samay ku celceli markan aad ku celinaysid isku day inaad noqotid qofka wax loo sharxaya iyo qofka sharaxaada bixinaya labadaba inaad noqotid isku day adiga oo luqadaadana fududeynaya inta marka aad samaysid sharaxaada aad bixinaysid haddii adiga ay ku qancin weyso dib ugu laabo ma aadan fahmin wixii aad doonaysid inaad fahamto ilaa ugu dambeyn ay ka qanciso sharaxaadaada dad badan oo cilmi baarayaal ah ayaa wax ka qoray habka ugu wanaagsan ee qofka uu wax u fahmi karo nin physician ah oo la yiraahdo Richard Feynman wuxuu sheegay in ay tahay habka ugu wanaagsan ee aad wax ku fahmi kartid in aad gaarsiisid u gudbisid qof kale wixii adiga lagu soo baray isku day inaad qof kale u gudbisid waxaana shaki ku jirin waxaas inaad fahmaysid soo talaabooyinkan ayuu sheegay oo number 1 ah inaad og tahay waxa aad rabtid inaad fahamtid in ka dhacsan tahay markaad ogaatid soo qaado qoraal warqad qor marka aad qoraysidna u qor sida adiga qof wax u sharxay hadalka iyo qoraalkan hay isla socdaan intaas marka dhamaysid waxaad fahmi doontaa gaabka wixii aadan fahmin ayaad ogaan doontaa mar kale ku celi adiga fududeynaysa luqadaada markana waxaad iska dhigtaa adiga kan sharxay iyo kan loo sharxay haddii sharaxaad aad bixinaysid ay ku qanciso waad fahamtay haddii ay ku qancin weysana mar kale gadaal u laabo ilaa aad ka fahamtid waxaan filayaa inay jiraan waxyaabo kale aad u far badan oo ku fududeynaya inaad wax fahamtid bal adiga daawadaha dhageystaha ah commentiga noogu soo qor waxa ay kula tahay in ay tahay habka ugu wanaagsan ee qofka wax ku fahmi karo commentiga hoose noogu soo qor sida ay kula tahay habka ugu wanaagsan ee qofka uu wax ku fahmi karo aad iyo aad u mahadsantihiin casharkii maantana intaas ayuu noogu dhan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.